waxaan ahay nin qaabeeya filimada maqal iyo muuqaal isku go-an ama qoro ama buug ha noqoto ama waxyaabo badan aan sameeyaa laakiin waxaan jeclaa dadka inay igu yeeraan Cabdixakiim BR meeshii comedian igu yeeri lahayn waxaan keenay fikir ah in aan kusoo kordhiyo una hiiliyo afkayga hooyo asagoo farshaxana baandaro iskuulada lagu dhagsado xafiisyada lagu dhagsado museumyada meelo badan lagu dhagsado hindiyaada afka Soomaaliga oo shibanihii iyo shaqalkii oo ay la qayb qaateen artistiyaal badan sida Shik wiilkiisa Sheekh Nuur Abdigaab Abdi Sisqo Juba ANC Amin Amir Mawniyo Somali Art Film Association aqoon-yahanana ay tafatireen ka gadaal kuwa edition 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waxaan u hubiyay qaranka Cabdixakiim waa artist waxa uu marar badan aad ku aragtaan meelaha TV-yada laakiin Cabdixakiim waxa uu mar walba ku dadaalaa in uu ka tago taariikh muhiim ah qofku inuu siyaasad u ordo ama kursi qabto waa temporary ama wax joogta ma aha qofka inuu meel istaago ama ka hadlo waa temporary laakiin qofka inuu wax ka tago oo dadkiisa wax uga tago oo laga dhaxlo ma aha temporary waa joogto waxa dhaxlaya wiilkiisa qofka af Soomaali soo gudbiyay oo farshaxanka ku soo sameeyay oo far Soomaalidii ku soo bandhigay shaqal iyo shibanaaw saayno ku soo oo ay sawiran tahay in guri kasta aynu ku dhajino ubadkeena baraawi waayo wiilka yar wuxuu Soomaali ku yahay ama gabadhaas Soomaali ku tahay waa af Soomaaliga markuu af Soomaaliga qofku garan waayo way ka lunto ogaada ninkaas qofkaas xarigiib goosay marka waxa leeyahay dadkeena Soomaalida oo qurbaha joogta waajib badan baa inuu ku saaran qofka dhaqanka soo gudbinaya in la iska rabtaago kana Soomaaliga soo gudbinaya isagu number 1 bal laga sii dhigo dalka reer galbeedka waa ku koray qofka wax soo saarka leh ama wax invent garay kara wax soo saari kara ama wax qori kara aad baa loo tixgeliyaa iskuulada marka dhiganayna waxa la dhahaa artska waa ka adag tahay science iyo xisaabta Soomaalida laakiin inta waxa aragnaa waxay u ordaan global studies in Italian politics iyo ma ogo in qof inuu noqdo Nobel laureate oo uu helo Nobel Prize inay ka sahlan tahay qof inuu soo saaro the great American novel ama the great English novel buugaagta laga akhriso dalalka aad bay u adag tahay qof inuu soo saaro 1 2 3 4 people soo saarto marka Cabdixakiim waxa rabaa inuu mahad celiyo waa nin artist ah Cabdixakiim BR arts ma la dhaho ma la iska dhihin he's an artist anigu aad baan u jeclahay maxay ahayd comedy-giisa iyo showgii ay sameeyeen asaga iyo Gurxan iyo Usbo was the best Somali TV program ama TV show ama TV skit wigad la sameeyay taasna Cabdixakiim ka dambeeyay marka uu mahad celinaya marka waa salaamantiin dhamaantiin waxaan salaan diiran iyo bogaadaan u soo jeedinayaa dhammaan dadkii xafladda tanqiimaha iyo qaayaha la soo abaabulay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdixakiim BR hawsha isku mas'uuliyay taasoo ah dadkiisa inuu wax uga tago qof kasta oo wax ummadiisu ay ka faa'iideyso dadka uga taga aad iyo aad baan anigu shakhsiyan u barbartaaganahay kolka Cabdixakiim baan u soo noqonayaa Cabdixakiim wax fiican buu qabtay waxa la yiri nin quman Soomaalidu waa tiraa war tolo waxa ay tiraahdaa tol marka Soomaalidu waa tol kollegeed waa tol waxay dhahaan tolku muxuu yahay waxa la yiri nin qatan qoodintii iyo mid quman qeyragelintii iyo mid qaldan qabashadii weeyaalay saasa dadku isugu tiirsay marka ninka quman in la qeyrageliyo way fiicanta annaga marka wax fiican buu noo qabtay waa qeyragelinaynaa waxaanu dadku haddii ay wax qabtaan de goor iyo bilada iyo waxba la siiya marka anigu waxaan u soo qaaday wixii naga dhaxeeyay ee sharafkii ahaa waxaan u soo bandhigay ciddii lahayd marka Cabdixakiim waxaan abaalmarin u siinaynaa oo hadiyad uga dhigaya calankii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee buluugga ah Cabdixakiim Cabdixakiim kaasaanu ku abaalmarinaynaa ummadii lahayd baan nahay fartayadii ayaad noo dhigtay oo nuga aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aad baad u mahadsan tahay xilka aad iska saartay in aad fartaan carruurta u qorto oo weliba muuqaal ahaan ugu soo bandhigtid waxaan jeclaan lahaa hooyooyinkuna inay qayb weyn ka qaataan afku waa dhaxal weeye waa dhaxalkii carruurta waa hiddahoodii iyo dhaqankoodii in ay hooyooyinku carruurtooda af soomaaliga guriga ku baraan oo ay si fiican u baraan ma aha inay ku faanaan wiilkaygu af soomaali ma yaqaan iyadoo taagan odagii iyo habartiba ay joogaan in ay yidhaahdaan carruurtayadu af soomaaliga ma yaqaanin waayo xilkii idinkaa gabay marka aad baan ugu faraxsanahay inaanu maartay haddii inta qaaliga ah aanu guddoonsiino guddoomiyaha insha allah alaabtaa waxaa iskale wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaa iskale ugu deeqay cabdixakiin br ciise sharaf allaha ka siiyo ummadda soomaalida meel ay joogtana salaan baanu u soo gudbinaynaa iyo hadiyadda qaaliga ah waxaan jeclaystay fikir ah inay carruurta Soomaaliyeed u baahan yihiin animation wax la yiraahdo oo cartoon camal iyo heesa carruureed intaas maadaama aan ka dhimanay qaybtaas beeska hoose oo carruurta waxaan sameeyay hees la yiraahdo ba ta ja yaale anale yale adale yale annagale ba ta ja ho o iga ho muddo yar gudaheeda dan waxaan sameeyay ba ta ja baba oo aan ku xoojinay afki artist ku jiro animation badan waxyaabo badan howlo badan saafo iyo artistiyaal badan iyo Mo New York iyo Maxamed Abdullaah Cali Tiri waa badan dad badan gacan weyn ka geystay bu ta tusbah ja jer ha harik waxaan kaloo sameeyay sheeko caruureed oo artistiyaal kale ay ka qayb qaataan artist lagu tusaayo wax walba in aan horta leenahay waayo wax islaameed waa laga fiican oo fikir cusub ah sheeko la yiraahdo Ali Beenaale Umar al jiray laakiin anigu waa bedel Ali Beenaale ujeedka aan u sameeyay waxa waaye sheekada aan dib u cusboonaysiiyo waa sheeko soo jireen wiilkiis looga sheekeyn jiray inay beenta waxa ay tahay carruurta u sheegay inay wax fiican ahayn islaamka isku fiicneen rasuulka alle ka deeriya dhaqanka Soomaaliyeed qofka beenta sheegay oo soo la fadhiisan meelaha lagu gartamo waxaan ku sii siyaadiyo oo kale jihooyinkii sida maaragtay koonfur waqooyi bari galbeed midig bidix kor hoos waxaa kaloo jirto heeso badan oo carruurta aan u sameeyay oo carruurta loogu dalo huwa la yiraahdo heestan waa jirtay laakiin miisaan iyo qaafid iyo waxaan u sameeyay iyo maaragtay iyo laxan cusub waxaa jirta huwa hurdo kaalay indhahnuun oo shaqo marka waa bedelay waxaan ka dhigay huwa yo macaano habeena la jooga rabta waaga holba bilaaban hodaalehiyo ilaahay mahoojo habeena la jooga marka waxaa ku luuqada qaadayso dear friend of mine oo aad aan jeclaa walaalanahay saaxiibnahay Saara Cumar Dulle dadka qaar way su'aalaan waxay yiraahdaan dad kale waxay alifaan ama dad kale waxay sameeyaan daxkiino maqaada ama ha hees caruureed baa jirto 2 sano ka hor oo nin dhalinyaro isiyo London degan oo la yiraahdo Abdisaaq Bulqaas oo mu'alif ma sha Allah uu ku mahadsan yahay aad aan jeclaaday heestaas waxa ay la qaadaysaa heesta fanaanad aad cod halaasi oo la taqabilan waxa kaloo la dhigayo Cabdixakiin Golden Boy oo program badan ku jira ma sha Allah oo abti u ahay SAFA Somali Art Film Association ayaa maaragtay tuubtay Mo New York hey yallay baddu waa xawaal
ruuxan dabal aqoon miyuu badbaadayaa naftu burji bay rabtaa badda lagu galo ruuxan dabal aqoon miyuu badbaadayaa heyalay baddu waxawaan ruuxan dabal aqoon miyuu badbaadayaa naftu burji bay rabtaa oo badda lagu galo ruuxan dabal aqoon miyuu badbaadayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan ku guulaystay inaan soo saaro xarufta lablaabmo oo baandare sidii xarufta hingaada afka soomaaliga shubanihii shaqalkaan hore usoo saarayba inaan caawa ku guulaysto halkan oo darbiga ku dhegan yahay waa kana waa h d waa classy artistayaal badan ayaa igala qayb qaatay oo halka aan kusoo koobi karin aqoon-yahano oo tafatireen marba haddii aan samaynayo afkii hadda koorna waa ka afeeftay afka anigu keligii ma lihi soomaali oo dhan ayla leh wixiina ma aha wax film oo maqal iyo muuqaal aniga aan sameeyo qofka raba ha jeclaado qofkaan rabayo jeclaan ma dhihi karo afka hadday timaado waa wax layla leeyahay rag u dhuun daloolo aqoon-yahano artistayaal inta aan la tashtay 9 bilood intaan yarista igu qaadatay looga gaaran u sameeyey loobadaas waxaa sameeyey cabdi maxamed cabdikaab iyo juba inc iyo mow new york iyo safa somali art film association waana jeclaan doontaan insha allah biidni illahi alkariim waxaan ugu talagalay iskuullada iyo waxaan ugu talagalay xafiisyada iyo inta soomaali oo dhan inay qaadato waxaan hilmaami karin madaxii raadiyo muqdisho uu taariikhda soo maro ugu da-da yaraay aqoon-yahan ayaa tafatiray cabdiqaadir maxamed mursal waxaan hilmaami karin sabriye macalin muuse talooyinkiisii wax ku oolgalaay professor abshir wasiirka waxbarashada maxaa la dhihi jiray professor cabdulcasiis cadde mustafa aqoon-yahano badan oo aan halkan kusoo koobi karin waa ka arki doontaan baanirka insha allah bilab iyo garidadka intaba waa ka arki doontaan oo markuu dhamaado videogan adinkana waxaan leeyahay afka aniga keligii ma lihi inaa afkiina naashnaashtaan anigu hay-adda ima wadato kiniisad ima wadato dowladdan ima wadato aniga dowladda addition 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 xarufta hingaada afka soomaaliga dowladda anaa siiyey waxaas waxaan intaas u sameynayana in aan dhisno bridge looga gudbo dhanka kale oo ah in dadkayga wax istaraan in dadkayga istaaqulayaan in afkeena aan ku faano in hidaheena aan ku faano in dhaqankeena qaybta xun aan tuurno qaybta fiican aan qaadano is diinteenana waa muqadis waa wax fiican aan ku noolaano